السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عدنان إسماعيل حرسي وكتر سنة ورك دايتك أبوي. هرتا ما أنت وحن فيديو كان الصوت وبني سي أنا مدة قبوية ودنيتك قبوية ملك استعيش مع شخصي هان أنت نيجا لها ظنه واحد شراء ضد بدن أو متعلمين واحد شراء ضد بدن أو دقالة هيستا waxaa jira dad badan oo waxa la yiraahdaa siyaasiyiin oo political oo professoriin baa jira marka waxa la yiri qofku haddaanu isagu aanu xaqiisa ka hadlin cid kasta oo hadasha waxa la yiraahdaa waxa uu qaban karto waayo adiga qadiyadan iska leh adiga ayaa lagu dulmayaa adiga ayaa xuquuqdaada la cunayaa adiga ayaa lagu joogsanayaa adiga ayaana waxba lagu ogolayn marka waxaan ka soo mataalayaa nin adigoo meel fadhiya oo isagoo aan arkayn cagta ku joogsaday hadaa qeylin weydid oo la weydid amba oo wadani laga dalbista baan xanuujisay ee ku sii kamilaya ku sii joogsanaya marka waxaan u maleeyaa maanta alxamdulillah dhalinyar badan baa inoo soo baxday barigi hore waxaan u jiray dhalinyar mutacalimiin ma jirto waxyaabo khuraafaad Soomaaliya ma garata Soomaalidu waxay luuday 30 sanadood Soomaaliya ugu barwaaqo badnayd ugu faa'iido badnayd ay meel kastaba adduunka meel kastaba ay ka gaadhay magac iyo sharaf iyo karaamad gabooyaha ayaa xukuumadaha ka tirsanaa madax ku xigeen haduu noqdo wasiir haday noqdaan la taliyaal haday noqdaan ciidamada ka shaqeeyaan iyaga ayaa bariga maamulka hayay maantana Soomaali waxay la baabaaday waa maalintii nimanka ay eegeen dhibta maanta inay haysa waxa weeyaan inakiiba hawkeeni dhibnay inakiiba dadka Soomaalida amba sida amaanka Soomaaliya aan ugu dadaalno hawkeeni u dhibnay oo ogolaaneeta dadka la noolaano dadkaasina wax kasta way naga diideen markii hore barigii hore dhibaatadii haysan jirtay waxay ahayd oo masku guursan iyo waxyaabaha laakiin xukuumadda siyaad barre markii ay dhacday ka bacdi cid kastaba inay tuhmadina saartay kaana magaca Soomaalinimo waxa ugu difaacayseen amba midnimada Soomaaliya waxa ugu difaacayseen ilaa maantadaana ninka Soomaaliland deega ee gabooyaha ee amaan buu siiyaa dadkaas ninka Puntland degan amaan buu siiyaa ninka Soomaaliya xamar degan amaan buu siiyaa سياسة يشؤون وحبا وحوجا مطلبضو وحود ضلبني بس والأركان ولا هذا إنك الداعي هذا دون صادق شو مشغول هذا دون صادق بالفوري لكن ما أنت وحلهم ولا يا تذكاسي إمك أفر هي لبعض السنة سحن ما كسب الصومالي هاتو سحن بين العاملي مجعيني قرب شوقي بصالة وقعنا يا نن هكذا يا مجرتو نن ممكن تبدأ لأن ممكن إلهي مك بقاني وحك بقان قالده كبقان ما كرت marka anigu waxaan lahaa nimanka saa uga hormaadno waxa laga rabaa dibadda dadkeena qurba joogka khaas ahaan ee dhalinyarta joogta ee mutacalimiinta intay dibadda isku soo arooriyaan ay waxa la yiraahaa waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya ninka sameeyay mas'uuliyadda saaro imka anigu waxaan buloonay waxa la yiraaho intaan u tarjumno haddana nahay anigu qaybta carabta intaan u tarjumo waxyaabo kasta ama video kasta oo ku jira YouTube-ka inta la turjumo waxa la yiraahdaa af Carabi waxaan doonaynaa dadka af Ingiriiska si fiican u yaqaan dadka af Faransiiska si fiican u yaqaan dadka af Hindiga xataa si fiican u yaqaan luqad kastaba aqoonsid ku dagaalamo oo qadiyadaada aan noqoto qadiyad international ka dhig ninkaagan qurbo joogo marka nimankan dibadda daqad kareysid dadka Soomaaliya cadaadka way ka yareynayaan laakiin inta adigu ku daawanaysid ma kartay ninkaaga qurbo jooga oo magacoodii aan difaacayn wax ogaata adaa dadka dulmaya Soomaalida maaha. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.